waxaa jira qodobo badan kuwaas oo saameyn ku yeesha in ilkuhu noqdaan kuwo lumiya caddaanta isuna rogaan kuwa muuqdoorsama oo ka taga midabkoodii hore. cuntooyinka qaarkood ayaa sabab u noqda in qaybta sare ee ilkaha ee enamelka loo yaqaan ay midabkeedu u isbedelo. sidoo kale waxaa ku samaysma lakab sare oo sabab u noqda in muuqaalkooda uu huruud ama jaalle isu rogo. haddaba isbedelkan xagga midabka ilkaha ah waxaa caadiyan lagu daweyn karaa in la joogteeyo nadiifintooda iyo dawooyinka lagu caddeeyo ilkaha. si kastaba mararka qaarkood muuqaalka ilkuhu waa huruud ama jaalle maxaa yeelay waxaa meesha ka baxa qaybta adag ee enamelka marka ay burburto. waxaynu aragnaa qaybta ka hooseysa ee dhantiinta loo yaqaano. dhantiin asal ahaan midabkeedu waa huruud ama jaalle, taasoo ka hooseysa qaybta sare ee enamelka oo iyada midabkeedu yahay caddaan. halkan waxaynu kusoo tebin doonaa 7 hab oo si dabiici ah ilkaha loogu caddayn karo. bal imikana qadar yar oo ogeysiisa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyadaanu soo gelino siina shargare. mahadsanid. saliidaha ilkaha caddeeya. saliidaha lagu luloodo waa kuwo xilliyo hore la isticmaali jiray, waxaanay horumarayaan nadaafadda afka iyo inay ka saaraan sumaha jidhka. saliidda qumbaha ayaa tan ugu caansan laguna isticmaal badan yahay. sirta ka dambeysa ayaa urteeda wanaagsan iyo ka helitaankeeda faa'iidooyin kale oo dheeraada. saliidda qumbaha waxaa kale oo ku jirta lauric acid, waxaana hoos u dhigtaa bararka iyo inay disho bakteeriyada. cilmibaarisyo dhowra oo la sameeyey ayaa hoosta ka xariiqay in saliidaha lagu luloodo ay yihiin kuwo waxtar leh oo shaqeynaya, hoosna u dhigi kara bakteeriyada afka ee Streptococcus mutans, sidoo kale dahaarka ilkaha iyo cirad xanuunka. baking soda. bakingku waa ilka caddeeye dabiici ah kaasoo leh astaamahaas. tanna waa sababta ugu caan baxay in xagga ganacsiga oo dawooyinka ilkaha lagu cadaydo qayb ka mid ah loogu daro. waxay ilkaha ka qaadaa midabka saaran ee huruudda ama jaalle ah. waxa uu afka ka dhigaa mid aal keliya oo aanay suurtagal ahayn in bakteeriyadu ay ku korto. daraasad la qaaday ayaa muujisay in baking soda uu leeyahay saameyn ilka caddayn ah oo muhiim ah. hydrogen peroxide waa mid si dabiici ah loogu nadiifiyo, sidoo kale waxay dishaa bakteeriyada afka si joogto ah. waxyaabo badan kuwaasoo la suuq geeyo oo ilkaha lagu caddeeyo waxaa ku jirta maadada hydrogen peroxide. waxaad u isticmaali kartaa inaad ku luqluqato ama inaad ku qasto oo aad ku darto baking soda si aad ilkaha ugu caddaysid, si fududna aad ugu caddeeyatid. khalka tufaaxa waa mid qarniyo loo isticmaali jiray. khalka tufaaxu in lagula dagaalamo waxyaabaha infectionka ama caabuqa keena iyo in si dabiici ah loogu daro waxyaabaha wax lagu nadiifiyo. acetic acid oo laga helo khalka tufaaxa ayaa mid shaqeynaysa oo leh astaamo dili kara bakteeriyada. waa sababta uu khalka tufaaxu u noqday mid la isticmaali karo si loogu nadiifiyo afka in ilkaha lagu caddeeyo. si kastaba isticmaalka xad-dhaafay wuxuu waxyeeli karaa ilkaha, waana inaad xadido isticmaalkiisa. isticmaal khudradda. cuntada ay ku badan tahay khudraddu waa mid u wanaagsan caafimaadka jidhka iyo weliba ilkaha. inkastoo iyaga aan ilkaha lagu cadaynin, haddana cunitaanka khudradda qaylin waxay kaa caawinaysaa inay meesha ka saarto lakabka ku samaysma ilkaha dushooda. waxaana ugu caansan khudraddaas strawberry-ga iyo cananiska oo kaa caawin kara caddaynta ilkaha. strawberry-gu wuxuu caddeeyaa ilkaha marka lagu daro baking soda, waana dawo dabiici ah. daraasad la qaaday ayaa lagu ogaaday strawberry-ga iyo baking soda ay ilkaha ka qaadaan midabka isbedelay. cananiska waxaa jira doodo sheegaya in cananasku uu caddayn kara ilkaha. cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday dawada ilkaha inay ku jirto maadada bromelain oo laga helo cananiska ay tahay mid muhiim isla markaana faa'iido iyo waxtar leh, meeshana ka saari karta lakabka ilkaha fuula. markasta oo daada qofku korodho dabiiciyan ilkahaagu waxay isu rogaan huruud, laakiin waxaa jira waxyaabo lagaga hortagi karo si aan midabka ilkuhu isu bedelin. waa inaad xadido qaadashada cuntada iyo cabitaanada bedela midabka ilkaha sida kafayga iyo cabitaanada soodhaha leh. yaree cuntada sokorta leh. haddii aad doonayso ilka cad waa inaad joojisaa qaadashada sokorta. cuntooyinka sokorta ku badan tahay waxay sare u qaadaan koritaanka bakteeriyada afka ee Streptococcus mutans oo sabab u ah lakabka ilkaha iyo cirad xanuunka. calcium. isbedelka midabka ilkaha waxa uu sababa marka qaybta sare enamelka uu meesha ka baxo iyo aragga dhantiinta oo ku xigta midab ahaan huruud ama jaalle. sidaa awgeed waxaa la soo jeedinaya inaad qaadato xaddi badan oo calcium ah si ay u adkayso enamelka kana caawiso in ilkahaagu noqdaan kuwo cad oo u ifaya sida luulka. qaadashada cunooyinka iyo cabitaanada ku qaniga ah calciumta sida caanaha waxay ka hortagaan burburka enamelka ilkaha. cadayga iyo dunta ilkaha. si joogto ah in loo cadayo iyo dunta ilkuhu waxa ay ka caawin kartaa in ilkahaagu ay noqdaan kuwo cad,
cadayga ilkaha lagu xaqayo wuxuu meesha ka saaraa midabka ilkaha fuula, halka dunta ilkaha iyaduna ay meesha ka saarto hoosna ay ugu dhigto bakteeriyada afka iyo inay ka hortagto lakabka ilkaha ku samaysma. maalin kasta cadayga iyo dunta oo lagu daray joogtaynta nadiifinta ilkaha adoo booqanaya dhakhtarka ilkaha waxay ka hortag u tahay tahaarka ilkaha. waxyaabo kale, dhuxusha iyo diirka khudaarta ayaa iyana waxay kaa caawin karaan in ilkahaagu ay noqdaan kuwo cad, laakiin ma jiraan cilmi baarisyo qiimahooda, badqabkooda iyo weliba waxtarkooda qeexaya.